بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa inaan u bayaaniyo saxaafadda iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeedba wixii ka dhacay maanta afaafka hore ee iridda Mariina ee laga galo airportka guud ahaan saakay aroortii 4 saac iyo bar waxa soo weeraray laba nin oo hubeysan oo argagixiso ah kuwa oo rabay inay arqaladeeyaan shaqada ka socota xaruntaas dhinaca Mariina oo ay ku yaalaan goobo badan oo ganacsi oo ay leeyihiin bulshada Soomaaliyeed oo hooyooyin Soomaaliyeed ay u soo shaqo tagaan si ay arsaaq ugu raadiyaan caruurtooda balse waxa ka hortagay weerarkaasi ciidanka ammaanka xarumaha goobtaas ku yaala waxaana si degdeg ah ugu soo gurmaday ciidanka gaarka ah ee booliiska Soomaaliyeed iyo kuwa ammaanka guud ahaan dalkaba waxa goobtii laga difaacay labada nin oo argagixisada ahaa ee u soo baxay inay laayaan ama baabi'iyaan nolosha ummadda Soomaaliyeed ee goobta ku ganacsanaysay mana jirin xero ciidan oo goobta ku taalay oo la weeraray mana jirin airport la weeraray airportka iyo meeshaasna isma quseeyaan waxayna isku jiraan ilaa iyo 3 kiiloomitir marka waxaana ka hortagay ciidanka ammaanka waana la soo afjaray goobtaas intii ay shaqaaqada socotay waxa ku waxyeeloobay ilaa iyo 6 qofood oo u badan dad rayid ah oo aan ahayn ciidamada waxaana ku dhintay 2 qofood oo ah ciidamadii iyo kuwii soo weeraray goobtaas ee ay ciidanku bacsadeen waxaana u sheegaynaa bulshada Soomaaliyeed inaysan ahayn waxa loo socdaa ciidan iyo xarun dawlo ay yihiin nabadda iyo horumarka ay ummadda Soomaaliyeed haysato goobtaas la weeraray kuma aysan sugnayn ciidan kuma sugnayn waxay aayeen tukaamo iyo goobo ganacsi oo ay hooyooyin Soomaaliyeed suuxi u soo shaqo tagaan airportkana shaqadiisa toos ay u socotaa wax dhibaato kama jiro airportka aadan cadde si nabada ayay diyaaraddu ku degaysaa kuna duuleysaa waxaan u sheegaynaa bulshada Soomaaliyeed inay nabad tahay waana mahadsantihiin